xubnahan ka midka guddida fulinta ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay xaaladda guud ee dalku maraya iyo waliba waxqabadka muuqda ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo muddadii ay talada dalka haysay waxaana mas'uuliyiintani ay codeer ay kaga warameen awoodana ay ku saareen shacabkana ay ugu iftiimiyeen waxqabadka la mahadiyay ee xukuumaddan ay samaysay dhaliilaha mucaaradka ee aan ku salaysnayn ha mucaaradnimo iyo waliba waxqabad muuqda oo ay dadka u soo bandhigayaan haddii marun ay talada dalka hogaamin lahaayeen guddidan fulinta ee xisbiga talada dalka ayaa hadalladooda waxaa ka mid ah iyagoo ka hadlaya arrimahaasi xaqiiqdu waxa weeye xisbiga kulmiye diyaar wuxuu yahay in doorasho dalka ka dhacdo cidda ku dhawaaqideeda leh xukuumadda wax ku baaqsaday ma jiraan intii xilku ka saaraa waajibaadkeeda waa gudato waxa u dambeysay madaxweynuhu magacaabidii uu 7 xubnood ee komishanka golaha wakiilada u soo magacaabay taa marka la ansixiyo xilku wuxuu ku wareegayaa komishanka qaranka iyaga inuu mudayn doona taa ku dheeraan maayo hogaamiyaha Axmed Maxamed Maxamuud nin maanta la baranayo ma aha gudoomiye mucaarad xisbi mucaaradna uu ahaa maantana taladii dalka isaga haya criticismka iyo faalada la faaleynayo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga xukuumiga kulmiye hogaankeeda Axmed hayo waxay u noqonaysaa sixid labadii 2010 halkii la joogay markan in yar oo kooban ka qaado dhaqaalaha waxa maanta aynu haynaa 200 oo milyan oo dollar baa dhaqaalaha maanta Soomaaliland soo gala ee wasaaradda maaliyadda miisaaniyadeeda dhaqaalaha waxa laga sameeyay maanta wasaaradda haddaad eegto in yar mooyaan 26 wasaarood ugu yaraan 20 wasaarood baa dib loo dhisay aan hayn 2010 aan dhisnayn waxa ugu horeeyay bridge-ka Hargeysa oo dawladdii hore dhisi kari waayay oo muddo 2 bilood gudaheeda ay dawladda kulmiye dhistay waxaan la dareensanay aan dadka doonayna dib u dareensiino warbaahintana dareensiino in ay darajadu qaatay 7 sanadood oo ay 2 sanadood gudaheed lagu qabtay oo 2010 aan jir waxaan dareensiinaynaa shaqaaluhu inuu ahaa 6000 maantana waa 14000 waan 2010 jirin maantana jira marka waxa la qiimeeyaa waxa lagu qiimeeyaa tiro iyo objectives ee lagu qaybiyo subjective iyo canaan iyo maag isla laakiin waa in tiro la keenaa waxa jiray shaqaalaha mushaharkoodu iyo gunooyinkoodu bariga waxa wax ka yar $100 maantana waxay leeyihiin mushahar waxay leeyihiin gunooyin 2010 taasmay jirin waxa jiray maanta xagga dhaqaalaha haddaad aragtid meel isku haysto dhaqaale isku soo meel horumari jiraan shidaal baynu maqla shidaalkii halkan laga qodi maayo shidaalkii maxaa reer hebel loo siin waayay maxaa halkan shaqaale loo bixin waayay seerayaasha maxaa saa loogu qabanaya mashruucan biyaha waxaad arkid had iyo goor dood socota oo ana wal hor jirin berigii hore waxa weeye lacagtaas cashuur lama kordhin xagay ka timi waxay ka timi waxa weeyaan ama waxa weeyaan si fiican baa loo ururiyay yahantidii dalka la ilaaliyay marka waxa lagu qiimeynayaa tirada marka lagu qiimeeyo kelmad ka baxdo mucaarada oo afka laga yidhi oo caay ah ama musuqmaasuq baa la sameeyay ma ahay waxa weeyaan maxaa la qabtay awal hore xagee jirtay lacagtan ay jirtay taas waxa weeyaan wax qabadka xoolo haday noqon lahayd beer haday noqon lahayd dhismayaal haday noqon lahayd wadooyin haday noqon lahayd ciidan haday noqon lahayd waxa soo dhamaa waxay dawladdu qabatay ee lagu xisaabtamayo dadkana aanu doonaa insha Allah ta'ala inay nagu doortaan si aanu halka uga sii wadno gabi maantii dhaweyto shir baa lagu qabtay xisbigu leeyahay oo lagu abaabulay xisbiga oo la doonayay in dadkii hadalay axsaabtii hadashay ee mucaaradka ahayd in loo jawaabo ayaa la qabtay waa ogtiino muddo lama furin xisbiga yani muxuu ahaa meel laba gabilay iyo gobolada kalaba waxa la yiri boardka laga tumo maadaama waqtigiisa soo dhow yahay hal la update gareeyo boardka laga tumo xisbiga ha shaqeeyo ya roolkiisa qaata leeysidii shir baa la qabtay balaadhan oo weyn si fiican bay shirkaasi u dhacay runtii
markii laga soo baxay meesha ayaa mashruuc buu ahaa mashruucan aragteen gubka calankan la gubay iyo calankan maxaan ku oday kabaha lagu baalasheynayay dee lugay haayeen ee dad baa aragteen afar inan baa la leexiyay meel inta la geeyay yaa lugahooda la sawiray iyo calankii gubanaya waxaana lagu tilmaamayaa inay yihiin dadka reer Gabil reer Gabil ay yihiin iyagoo mudaaharaad iyo calanka gubayo socdo oo la arkayo iyo hadda iyaga yihiin layna tusi lahaa lugaa layna tusa yani wuxuu inay forgery tahay oo aanay wax sax ahayn oo la sameeyay haydeen la sameeyay de way ku cadaydo haday jirto de dadka mudaaharaad iyo socdo oo calankii yani gubayo oo wax sameynaya layna tusi lahaa runtii reer Gabil waxay shaqo ku lahaayeen in reer Gabil waajibadoodii ka soo baxeen shirkoodii way qabsadeen way hadleen way dhameysteen waa samays horta marka hore mas'uuliyadda qabashada doorashada waxa leh komishanka doorashooyinka ma saara xukuumadda iyo madaxweynaha midnaba ma saara qabashadeedu marka uu komishankaasi diyaarsada hawlihiisa isaga ayay tahay sida sharcigu banaynayo inuu xilliga ay qabsoomayso isla qaato goosto dabeedna uu madaxweynaha u qoro oo taariikhda saarno doorashadii ku qabanayna madaxweynuhuna uu ku soo saaro xeer madaxweyne horta doorashadu sidaasay ku qabsoontaaye ma aha wax madaxweyne u taala qabashadiisa iyo guud ahaan diyaar garowgeedu xukuumaddu waxay ku leedahay qayb bay xagga kharashka diyaar garowga kharashka ayay qayb ku leedahay wixii sharciyada ahna u diyaarintiisa xukuumaddu way leedahay way qabatay xukuumaddu miisaaniyad doorashada diyaar garowga doorashada wixii ka saaraay oo hore loo sheegayo miisaaniyadda sanadka soo socda way ku dartay doorashadii iyo diiwaan gelinihii u ahaaba doorashada u ahaa dee maxaan ku dhahdaa furaha u ahaan lahaaba annagu berigaanu kulmiyahayna mucaaradka ahayn waxaan oran jirnay waxaasa khaldan waxaana waa ku bedelaynaa waxaasina way khaldan yihiin sidaana waa ka yeelaynaa waxaasina way khaldan yihiin kisaana waan u saxaynaa ilaah baan idinku dhaariyey ilaa maalin walba way hadlaaneen miyaad maqasheen weli waxaasaanu qabanayna iyagoo leh anu maan maqal sababtuna waxa weeye wixii aanu oran jirnay waanu qabanaynaa khaldanaa baa wada qabsoomay marka wuxuu qabiyaabay arki waayeen xubnahan ka midka guddida fulinta xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa hadalkoodani waxa uu ku soo beegmayaa xilli xukuumadani ay wadanka hogaaminaysay muddo 4 sano iyo waliba waxqabad muuqda oo ay ku faanaan oo shacabka Soomaaliland ay u soo bandhigeen iyo waliba waxa ay higsanayaan Axmed Saki Daarasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.